madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayli ayaa lagu soo dhaweeyay duleedka magaalada Boorame ee Dila. soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin, cuqaal, siyaasiyiin, waxgarab iyo qaybaha kale ee bulshada. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayli ayaa loo soo galbiyay dhanka magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Awdal, isagoo warfidiyeenada kula hadlay aqalkiisa ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeman Ramaax, waxaana uu sheegay soo dhaweynaya dadweyne reer Awdal, heer degmo, heer gobol, dadweynaha, salaadiinta, dhalinyarada, qaybaha bulshadu ka kooban tahay dhammaan reer Boorame. madaxweyne ku soo dhawow si aad ogala qayb gasho dabaaldega go'aansiyada Soomaaliland oo ku beegan 18 May. aad baan kuugu mahadnaqaynaa adiga iyo waftigaaga ballaaran ee looga yimi caasimadda. waana soo dhaweynaynaa. Assalaamu calaykum. dhammaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada Boorame xuska maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May, waxaana uu sheegay الحمد لله. هذه الله ستين الرقورة دائما محمد مركز الواد وعلى وليه محمد ودريا ما مفضل هي الدولة الشعبية هذا الله هذا الدولة بورما إيش شرفت لنا مسؤولين لا يمكن رجينا إلى هؤلاء الناس بعدنا وصومان الكريم سبحان الله إسلام البركة الدولة وأنا بالجليدة يسوي حوجينهم يسوي البلدقة يسوي الجراف هذا يسوي ركتي يستخدمون Soomaaliland وكل سنة طبعا إن شاء الله تسعة يوم إن شاء الله إنه يعيدوا مش مشي بالله خير قال يدور الناس. عبد الفتاح بشير عبد الفتاح مية حاجة نيوز.com بورما.